بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم أخيارتا نلا سعوتا ميل كستوات جوكتان كسو دوادا kooxda xuutiga ee waddanka Yemen ayaa maanta diyaarada qaraxyo ku hubeysan ku weerartay gudaha dhulka Falastiin ee Israa'iil ay gacanta ku hayso waxa lagu soo warramayaa diyaaradahaasi qaar inay geysteen dhibaatooyin khasaare ah taasi oo wararku ay tilmaamayaan in ciidamada Israa'iil ay muddo ku amreen in la joojiyo isku socodka diyaaradaha ee garoonka Ramon oo ku yaala halka loo yaqaan Najaf oo dhulka Falastiiniyiinta ah oo ay hadda Israa'iil maamulaan dhinaca kale ciidamada Israa'iil ayaa maanta dilay tiro ku dhow 50 ruux oo rayid ah kadib markii duqeymaha ay ku hayaan magaalada Gaza ay kor u sii qaadeen haddaba weerarada labada dhinac ay isweydaarsanayaan saameynta mustaqbalka dagaalka gobolka bariga dhexe ee ku yeelan karayso maxaa lagu micnayn karaa barnaamijka caawa ayaan ku dul istaagi doonaa qodobkan haddii uu Rabbi saamaxo warbaahinta ugu afka dheer ee waddanka Faransiiskana waxay mar kale ku celiyeen awoodda ciidamada waddanka Turkigu ay leeyihiin iyagoo tilmaamay in Rajab Tayyip Erdogan uu ku guuleystay dhismo ballaaran oo ciidamada ah iyo waliba wax soo saarka tiknoolajiyada Turkiga ayaa ciidamadiisa qalabkooda ku filnaaday inuu gudaha waddanka ka soo saaro 80% taasi oo durbaba dawladda ku yaala bariga dhexe ay ka mid tahay nidaamka Israa'iil ay bilaabeen walaac xoog leh inay ku hayaan haddaba maxay tahay waxyaabaha Faransiiska hadda walaaca ku haya ee qasbaya warbaahintooda in ay si weyn u lafaguraan militariga waddanka Turkiga iyo waliba saameynta uu ku yeelanayo gobolka bariga dhexe baarlamaanka waddanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran maanta waxa ay ansixiyeen qaraar aad muhiim u ah oo muujinaya in la awoodeeyo militariga waddankaasi iyadoo wasaarado kala duwan lacag laga soo jaray talaabadan ayaa lagu sheegay in looga hortagayo gardarrada nidaamka Israa'iil uu ku doonayo inuu ku weeraro qaybo ka mid ah dhulka dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran arrintan ayaa noqonaysa mid sii xoojinaysa xaaladda militariga ee gobolka bariga dhexe waxaana laga baqayaa dagaal xoogan gobolkaasi inuu faraha la galo maalmaha soo socda Ali Larijani ayaa soo saaray amar xoogan oo ku saabsan in dib loo awoodeeyo qalabka ka hortaga gantaalaha iyo sidoo kale gantaalaha ciidamada waddankaasi ay ku dagaal galaan maalmaha soo socda ayaa laga yaabaa waddanka Iran inuu soo gato hub kale oo aad u fara badan xilli la saadaalinayo dagaal gobolka bariga dhexe dib uga qarxa mar kale dawladda Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale boqorka waddanka Jordan waxay ka wada hadlayaan sidii loo soo abyi lahaa colaadda ka taagan magaalada Gaza halkaas oo ay ku dhimanayaan dad kumaan kuna waxna saacadihii la soo dhaafay jira wada hadal u dhaxeeya labada hogaamiye ee labadaasi wadan iyagoo iska kaashanaya sidii colaadda loo soo gabagabayn lahaa laakiin marka laga yimaado shirarka istaba joogga ee wadamada Carabta madaxdoodu ay yeelanayaan suuragal ma tahay in dhinaca kale Israa'iil lagu qanciyo dagaaladaasi inay joojiso akhyaartay nala socota ay qodobadaas ayaan ku faaqidayaa barnaamijka caawa inagoo dhinacyo kala duwan ka istaagi doona haddii ay noqon lahayd xag military xag siyaasadeed iyo waliba diyaar garowga dagaalka ee gobolka bariga dhexe dhinac walba ka soconaya marka laga reebo dawladaha Carabta oo iyaga isdhul dhigay ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara aad baad u mahadsantahay aan ku horeeyay dawladda Xuutiyiinta ee fadhisa Sanca ee waddanka Yemen ayaa duqeymo diyaarada qaraxyo ku hubeysan ah ku weerartay gudaha garoonka loo yaqaan Ramon ee ku yaala Najaf oo dhulka Falastiiniyiinta ah halkaas oo ciidamada Israa'iil ay hadda gacanta ku hayaan wararku waxay sheegayaan diyaaradahaasi isqarxiyo qaarkood inay geysteen khasaare soo gaaray dad ku sugnaa garoonkaas in muddaaba waxa lagu soo warramayaa garoonkaasi inuu xayiraad ku sugnaa sida wararka aynu helayna ay tilmaamayaanba wararka ka imaanaya Israa'iil ayaa sheegaya in ciidamada cirka ee nidaamkaasi ay ku dhawaaqeen inay ka hortageen sida ay tilmaameen 3 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo laga soo riday dalka Yemen kuwaasi oo mas'uuliyadoodu ay sheegteen kooxda lagu magacaabo Ansaarullah balse loo yaqaano magaca Xuutiga ee waddankaasi Yemen ka dhisan diyaarad kale oo ka mid ah diyaaradahaasi ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhacday gudaha garoonka diyaaradaha ee Ramon oo ku yaala baaliyiri koonfurta Israa'iil dhulka Falastiiniyiinta laga haysto gaar ahaan gobolka loo yaqaan Naqab ama Najaf
iyadoo wararku ay sheegayaan in ay sababtay dhaawacyo iyo weliba waxyeello soo gaartay dad ku sugnaa gudaha garoonkaasi sida wararku ay qeexayaan. sida ay sheegeen warbaahinta Israa'iil, mid ka mid ah diyaaradahaasi ayaa si gaara ugu dhacday qolka rikaabku ay ku sugaan diyaaradaha ee garoonka Ramon, sida ay taasi oo keenta baa layidhi in muddo kooban la xiro hawada garoonkaasi, islamarkaana dhowr diyaaradood oo 10 gaaraya oo garoonkaasi ku wajahan la amray in la weeciyey. dhinaca kale, ciidamada Israa'iil waxa ay ku doodeen in 2 kale oo ka mid ah diyaarado qaraxyo waday goobtaasi laga weeciyey oo ay ka hortageen gantaalaha difaaca hawada oo hawada sare lagu burburiyey. kooxda Xuutiyiinta oo taageero ka helaysa dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan waxa ay ballan qaaday inay si xoogan uga argudan doonto baa layidhi dilkii loo geystay ra'iisul wasaarahoodii oo ay Israa'iil duqeyn ku dishay bishii la soo dhaafay dabayaaqadeeda. tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo waliba dhinacyada wax iska caabinta gobonnimadoonka Falastiiniga 7 bishii Oktoobar sanadka 2023, Xuutiyiintu waxay si joogto ah gantaalo ugu garaacayeen dhulka Falastiiniyiinta ee hadda Israa'iil gacanta ku hayso, taas oo nidaamka Tel Aviv fadhiya ay si weyn uga caroodeen. sidoo kale, Xuutiyiinta ayaa weerar ku qaaday maraakiib ganacsi oo maraya badda cas, iyagoo sheegay in maraakiibtan ay xiriir la lahaayeen Israa'iil, waxaana wasiirka wasaaradda gaashaandhigga nidaamkaasi waa Israa'iil ninka lagu magacaabo Israel Katz uu ku dhawaaqay in Xuutiyiintu ay ka shalaayi doonaan dhibaatooyinka ay geysanayaan. dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan waxa ay ku dhawaaqeen baarlamankoodu maanta in kor loo qaadayo awoodda ciidamada waddankaasi si looga hortaga baa layidhi dagaalada gardarrada ah oo ay suuragal tahay nidaamka Israa'iiliyiintu inay sameeyaan maalmaha soo socda, sida wararku ay tilmaamayaan. meelo kala duwan ayaa dhaqaale laga soo jiray, waxaana suuragal ah maalmaha soo socda in Iiraan ay ku dhawaaqdo soo iibsashada gantaalaha difaaca hawada iyo sidoo kale qalab militari oo aad casri u ah oo lagu biritaarayo awoodda ciidamada qaranka ee dowladdaasi. sida uu qorayo telefishinka Al Jazeera, baarlamaanka dalka Iiraan ayaa maanta si aqlabiyad leh u ansixiyay baa layidhi sharci cusub oo lagu xaqiijinayo awoodda militariga qaranka ee waddankaasi si looga wajaha baa layidhi waxay ugu yeereen gardarrada iyo dembiyada ay geysanayaan Israa'iil xilli ay xiisad xoogan kala dhaxayso nidaamkaasi dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. afhayeenka guddiga amniga qaranka iyo siyaasadda dibadda ee baarlamaanka waddankaasi Ibrahim Ridaa'i ayaa sheegay in sharcigan cusub uu ka kooban yahay hal qodob oo 6 qaybood u farcami doona, kuwaasi oo si toos ah loogu talagalay in lagu kordhiyo maalgelinta iyo qaybinta ciidamada qalabaynta ciidamada dowladda Iiraan, gaar ahaan kadib dagaalkii 12 maalin socday ee sida gardarrada ah xulafada reer galbeedka oo taageeraya nidaamka qariska Tuurka ee Iiraan baa layidhi ay iminka waddankaasi horey weerar ugu qaadeen. qodobadaasi waxaa ugu muhiimsan sharciga maanta baarlamaanka la horgeeyay kordhinta miisaaniyadda ciidamada oo si buuxda loo kordhiyo. wasaaradaha shidaalka iyo hay-adda qorsheynta iyo miisaaniyadda qaranka Iiraan ayaa lagu waajibiyey inay si buuxda miisaaniyadda sanadkan u dhammaystiraan, taasi oo lagu qiyaasay 2.36 bilyan oo dollarka Mareykanka si loo taageero ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale in la daabulo ama la dabaro baa layidhi deemihii sanadkii hore ku haray ciidamada. waxaa la dhisayaa baa layidhi awoodo difaac oo muhiima. waxaa la waajibiyey in la fuliyo dhammaan go'aanada golaha sare ee amniga qaranka, gaar ahaan amarkii uu soo saaray Cali Laarajani ee la xidhiidhay awoodaha difaaca iyadoo la adeegsanayo dakhliga saliidda iyo weliba kaydka miisaaniyadda guud ee qaranka. malaayiin lacagta euro ah ayaa loogu talagalay sidoo kale muddo dhow in waddankaasi lagu soo xareeyo, taas oo bangiga dhexe lagu amray baa layidhi oo la faray in uu bixiyo 2 bilyan oo euro, taasi oo laga soo qaadaya baa layidhi hantida dowladda Iiraan u taalla waddanka dibaddiisa, islamarkaana lagu dhisayo guud ahaanba ee ciidamada waddankaasi iyadoo ogolaashiyo laga soo qaatay Ayatollah Cali Khamenei awgi.
waxaa la soo iibin doonaa maalmaha soo socda qalab difaac oo caalami ah sida ku xusan hadalka baarlamanka maanta ka soo baxay. waxaa la qorsheynayaa in la iska kaashado bariga dhexe iyo weliba wasaaradda dhaqaalaha si loo helo lacag u dhiganta 2 bilyan oo euro oo lagu soo iibiyo agab military oo degdeg ah inta aanu dagaal waddanka si rasmi ah u wajahin. taageerada ciidamada iyadoo la iibinaya baa layidhi saliidda ayaa lacagta ugu badan ee shidaalka waddankaasi ka timaada waxaa lagu dhisi doonaa ciidamada. qorshaha saliidda lacagta ka imaanaysa dowladda Iiraan ayaa lagu sheegay dhinaca ciidamada loo wacin doono 1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. waxaana sidoo kale dakhliga hawada ka soo xarooda diyaaradaha isticmaala hawada sare ee waddanka Iiraan 30% lagu qarash garayn doonaa ciidamada si awoodda loo dhiso. dhinaca kale hadalkan waxa uu imaanayaa iyadoo shalay wasiirka amuraha qaarajiga ee dowladda Iiraan Cabbaas Caraaqji uu ku dhawaaqay in si dhaba loo wajaho caqabadaha daaqiliga ee taagan si looga hortago gardarrada ay wadaan Faransiiska, Jarmalka, Britain iyo Israel oo taageero ka helaya dowladda Mareykanka. waxa uu yidhi guud ahaan marka aynu ka gudubno si geesinimo leh aan u wajahno caqabadaha gudaha ee dowladdeena ayaa suuragal ka dhigi karaya cadowga nagu soo gardarooday inaan meel iska saarno sida uu ku dhawaaqay ninkaasi wasiirka amuraha dibadda u ah dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan. ciidamada Israa'iil ayaa maanta dilay dad kor u dhaafaya 40 ruux oo rayid ah gudaha magaalada Gaza kadib duqeymo kala duwan ay halkaasi ka geysteen. ilaha caafimaadka ayaa u sheegay telefishinka Al Jazeera iyo warbaahinta halkaasi ka soo waramaysa in dadkan waxyeelada ugu badan ay ka soo gaartay duqeymo iyadoo dhinaca kalena ay jireen kiisas dad u geeriyooday gaajo iyo macluul daran oo soo wajahday awgeed. xaaladda magaaladaasi ayaa lagu soo waramayaa inay ka sii darayso iyadoo Israa'iilna maanta ay ballaarisay duqeymaha ay ku wado dhismooyinka dadka rayidka ay degan yihiin ee ku yaala magaaladaasi. ujeedaduna waxay tahay guud ahaanba magaaladaasi in loo ekaysiiyo goob lama degaana oo la tirtiro jiritaankeedii magaalanimada. Israa'iil waxay ku dhawaaqaysaa in dagaaladan ay sii wadi doonto tan iyo inta guul laga gaarayo xalinta dagaalada halkaasi ka taagan. waxay noo soo socda warar ku saabsan warbaahinta waddanka Faransiiska oo si gaara indhaha ugu haysa awoodda military ee waddanka Turkiga ee sii kordhaysa ee aan ku horeeyo wadamada Jordan iyo Imaaraadka Carabta. boqor Cabdullaha labaad ee waddanka Urdun iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda Imaaraadka ahna boqorka ugu sarreeya waddankaasi Maxamed bin Saayid ayaa kulan qaatay iyagoo iska wareysanaya xaaladda gobolka bariga dhexe iyo sidii loo soo gabagabayn lahaa colaadda ka taagan magaalada Gaza. Carabta ayaa maalmihii ugu dambeeyaba waday wadahadallo ay doonayaan in colaadaha lagu soo gabagabeeyo ka taagan magaaladaasi. saatee dhinaca kale waxaa kordhaya weerarada Israa'iil ay ku hayaan dadka rayidka. lama oga kulankan Carabtu madaxdooda ay yeelanayaan gaar ahaan labadan hogaamiye waxa uu ku soo kordhin doono arrimaha xal u raadinta Israa'iil ilaa iyo hadda ay ka biyadiidsan tahay. wargeyska lagu magacaabo Le Figaro ee dalka Faransiiska ka soo baxa dalka Faransiiska ayaa si weyn u muujiyay awoodda ay leeyihiin ciidamada militariga ee waddanka Turkiga. waxaana uu ku tilmaamay inay hadda ka badinayaan xagga awoodda marka la fiiriyo Iiraan iyo Israa'iil gobolka bariga dhexe. Turkigu waxa uu noqonayaa buu leeyahay wargeysku awood dheellitiran oo military iyo quwad kordhaysa oo suuragal ka noqonaysa dowladaha shanta ah ee waaweyn ee adduunka inuu ku biiri karayo waddankaasi marka la fiiriyo tiknoolajiyada militariga oo sanadihii ugu dambeeyay gaarayay. wargeyska Faransiiska ee Le Figaro ayaa ku dhawaaqay warbixin si gaar ah uu kaga qoray Turkiga isagoo sheegay in dalkaasi uu si hufan ugu socdo dariiqa inuu noqdo awood military oo gaar ah isagoo isu diyaarinaya baa layidhi inuu iska caabiyo dalal sida Israa'iil iyo Iiraan oo kale ah oo gobolka bariga dhexe ugu awoodda badnaa isagoo ku wabaysan qalab military oo casri ah oo ku saabsan baabuurta gaashaaman gantaalo awood sare leh dayax gacmeed isgaarsiinta loo adeegsanayo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo dhammaantood ah tiknoolajiyad maxalli ah oo dowladda Turkigu ay gacantooda ku samaysteen. warbixintan uu qoray wariyaha sida gaarka wargeyskan uga faallooda dalka Turkiga ayaa si qoto dheer leh u falanqeeyay
korarka awoodda warshadaha militariga ee dalka Turkiga isagoo si gaar diiradda u saaray guulaha ay ka gaartay shirkadda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar taasi uu tilmaamay in ninka lagu magacaabo Bayraktar uu yahay nin awoodiisa hadda ay muuqanayso isla markaana ka shaqeynaya horumarinta tiknoolajiyad maxalli ah oo dunida aad u soo jeedatay. Bayraktar oo sidoo kale ah buu yiri injineer iyo nashqadeeye military ayaa isagoo xiganaya waxa uu tilmaamay in uu yahay astaanta guulasha tiknoolajiyada militariga Turkiga waxaana uu ku caanbaxay diyaaradda Bayraktar TB2 taas oo guulo waaweyn ka gaartay dagaalkii Azerbaijan ay la gashay Armenia 2021 diyaaraddan ayaa sidoo kale ciidamada dalka Turkigu ay kaga adkaadeen Kurdiyiinta waqooyiga Syria iyo kuwa Ciraaq labadaba sidoo kale dowladda Ukraine ayaa macdaro uga dhigtay dagaalka ay kula jirtay Ruushka sanadkii 2022 iyadoo dabaabaadkii ugu badnaa ee dowladda Ruushku ay leeyihiin ay diyaaraddan si weyn u burburiyeen. horumarka joogtada iyo mustaqbalka warshadaha difaaca dalka Turkigu waxay tahay astaan muuqanaysa oo aan hadda la qari karin baa lagu yiri warbixinta. Bayraktar waxa uu shaaca ka qaaday baa la yiri waa ninkan tiknoolajiyada ka shaqeeya ee dalka Turkiga dhowr diyaaradood oo kala duwan oo ay ka mid tahay DB3 diyaaradda daroonka ah ee mucjisada ah ee dhawaan lagu wareejiyay militariga dalka Turkiga iyo sidoo kale diyaaradda la yiraahdo Kasalelema oo ah diyaarad dagaal oo awood badan oo u dhiganta jiilka shanaad oo kaligeed iswado aan duuliyo lahayn taas oo la filayo in sanadka 2026 ay ku soo biirto qalabka militariga wadanka Turkigu ay adeegsanayaan. isagoo sii hadlayay doorka tiknoolajiyada ayaa ninkan waxa uu leeyahay waa ninkan Turkiga ay arrimahan farsameynaya waxa noloshayda u horay buu yiri inaan horumariyo tiknoolajiyad maxalli ah oo leh madax banaani difaac oo qarankayga ah. waxaa garab taagnaa xilliga warkan uu jeedinayay Murad Akinzi oo ah madaxa shirkadaha gantaalaha Turkiga ee loo yaqaano Roketsan oo dhageysanaya baa la yiri hadalka ninkan uu soo jeediyay. hadda warbaahinta Faransiisku waxay leeyihiin marka la fiiriyo kobaca diyaaradahan iyo tiknoolajiyada wadankan uu samaynayo waxaa muuqanaya wadanka Turkiga inuu noqonayo quwad aan la loodin karin awooddoodana ku sii baahinayo gobolka bariga dhexe.